بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. walaalkay qiimaha badan oo walaashida sharta badan maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego wax hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo fahamkeeda noloshaada ay wax weyn iska bedelayso. aniguna waxaan maalin kasta halkan u soo galayo walladii la ilaaha ghayruhu uma soo galo inaan like ku raadiyo ama views aan ku raadiyo ama aan shilin ka sameeyo. wallahi shilin kama sameeyo social media arsaaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelo kale oo ii galiya ayaan ka bariyaa oo aan ka raasada. waxaan halkan u soo galo waa li ajli hubbika aan ku jeclahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aan ka rajaynayo yawm al-qiyamah aniga adiga in aynu jannada ku kulano biidnillahi al-karim. anna Ilaahay baan janno weydiistaa oo ma meeshan ku dambeyn doono adna Ilaahay inaan janno ku weydiiyo waxyar Ilaahayna amriga amalka saalixa ahne in aynu isagu kaalmayno. Ilaahay waa saga dhahaya wal mu'minuna wal mu'minatu gabdhaha mu'miniin wiilasha mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka waa bacduhum waa qaarkood qaarka galay garab u yihiin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. aayadda anigoo ka duulay fi surati tawba ayaan halkan u soo galaa. maanta waxaan ku wada fariin runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu kugu anfaco noloshaadu ay wax weyn iska bedelaan waana laba kalmadood oo noloshaada wax yar sabar insha Allah ta'ala. حقنا هآذن لايف كلنا هآذن فيوز كلنا هآذن فيديو كلنا هآذن إن يريد القضاء وما لن جمعوين كنا خيرات كوذا إيا بركات كوذا إيا نفحات كوذا وطان ما لها جمعة ذا ما ننتكنا نقا إذا كدهين بإذن تهي جمعوه وحي وطان بركات كوذا وطان ولالك عمل كستو أو كسو بحجر كاغا فرينتا أنكوذا تنويان عمل كستو أو جر كاذا كسو بحدون نقضى قول إيا فعل iyo haduu noqdo mataqaana oraah wixii ka soo baxa Ilaahay agtiisa laba wajiib ku leeyihiin wax walba ka soo baxa imma in uu noqdo amal nuurani ah amal nuur xambaarsan oo xasanaad ku helayso oo jannada guriga lagaaga dhisayo oo Ilaahay raali aashiisa ku dhaweynayo iyo imma inuu noqdo amal Ilaahay calays ku keenayo oo naarta ku jiiday waa uu labada way hadaan ka aamusan marka ayada ah hadii marka noloshaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala xubbo ka soo baxa uu sida ka dhigay adiga marka waxa laga raba waa maxay inaad smart noqotaa laga raba waa inaad ku dadaashaa amalka saalixa mesela hadaad subhanallah tiraahdo kaliyata subhanallah hadda ma ahya isla daqiiqadaas qasri bu Ilaahay jannada kaaga dhisaya subhanallah yani shajara fil janna andahe shajara fil janna geed jannada ku yaala oo jiridiisu ay dahab tahay 100 yani sano uu hoos soconayo qofka faraska ugu dheeray wata yaa marka jannada laga qotaminaya وسبحان الله ترى تبنجر قل هو الله هداد أخرجه قصر بجنة لقى السيا جوري فيلا يدهن قصر وبالس جوري وين قصر يفك عربي جو حلي هذا جوري جو وحول بون نفته يوبها أنت لو نحكي ديها قصر لك يعني وحول لو صوكوبي آثافكي يوحي الله بهنايو أجابتي يا حمان شو دم باكل نحدن با ولا سبحان مركب جنة لقى السيا مركب جنة لقى قسم يعمل كاسة صالحة جنة باقكم أهانيو waxa jannada ka soo baxaya amalka asaga barakadiisana adduunka ku helaysa halka ku dhadhaminaysa hadaad amalka saalixa sameeyay Ilaahay ballan qaaday jannada bas amalka saalixa kama shaqeeyo amalka saalixa adduunyadu ka shaqeeya effectigiisa iyo saameyntiisa halka ku helaysa that's why dadka dhikriga iyo acmaash saalixada ku dhex jira ay u dhahan waxaan ku dhex nool lahay nolol macaan wallahi haday ogaan lahaayeen nolosha aan ku nool lahay dadka mulukta iyo abnaa'ul muluk haday ogaan lahaayeen la jaaladuna bisuyuf bay dadka horan jireen seefahay naga qaadan lahaayeen dadka ahlu macaasida ahne amalka xun marka ay sameeyaan naarti iyo position koodi iyo meelihii buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu diyaarinaysa waa acmaasha naarta lagu goor dadka toobad keenin at the same time adduunkan bay effectigiisa kugu soo gaaraya waliga ma aragtay qof ahlu macaasi ah oo xumaanta laaqda oo farxad ku nool meed aragtay kulligood walwal iyo depression iyo stress iyo gham iyo hami bay ku nool yihiin maxay la amalka saalix ah effectigiisa adduunka ay ku arkaysa at the same time aakhirana wuu kaaga horeeya hadii marka ay saa tahay maxaa diiday amalka saalix ku dadaasho inta kaliya ma aha qiyaamaha marka aad timaado labada amal ee amalka saalix iyo amalka xun qofka amalka saalixa wata wuxuu imanaya baliri tahmiluhu hasanatuhu isoo hasanaadkiisa saaran buu imanaya oo nuur ay u tahay halka qofka sayi'aadkiisu isagoo dhabarka uu saaray dunuubtiisa uu imanaya waa saga Ilaahay dhahaya yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun waxyaalihi aad sameysay iyo wuzuurti iyo dunuubti oo dhan iyadoo dhabarka ku saaray culeyskooda iyo ximligooda wayahmiluna yani asqalahum wa asqala ma'a asqalihim culaysyo kala daran wixii ay sameeyeen iyo wixii ay sunnayeen iyo wixii dadka ay ugu sheegi jireen dunuubtooda iyagoo dhabarka u saarantay qiyaamaha la keenaya waa amalkiis xumaanta markaad sameeyso maxaa marka diiday walkay qaaliga oo inaad amalka saalaad ku dadaasho
انت كلية معها إلهي سبحانه وتعالى واسقى هي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ابن عباس آية مركو فسير يوان كسو قبينيا waxa uu leeyahay qiyaamaha waxa la keenaya oo qofka loo sheegay bima qadama wa akhar waxa soo hormarsay iyo wixii aad gadaal ka timid oo aad sunnaysay dad isku dirtay hadaad reer burburisay hadaad wadan burburisay hadaad heesad iyo fan iyo balaayi iyo qashin aad samaysay hadaad kilaabi iyo meelaha aad furtay wax walba oo jideeyo sunno xun ahne amalkoodii intuu dunida ka shaqeynaya lagu soo hordhigaya ila adiga ayaa keenay hadaad xumaanta sheer garan jirtay inta xumaan sheer garaysay dadka daawanaya iyo waxa ay qasayaan adiga ayaa qiyaamaha dhabarkaaga la saaraya. walaalkayga waxa wanaagsan ku dadaal walaashayday waxa wanaagsan ku dadaal yunabba'u al-insaanu baa loo waramaya yawma idin maalinta qoraxda iyo la kulmaya dayaxa bima qadama wixii uu hormarsaday. that's why waxa la yiraahdaa qofku marka uu dhinto oo ay naftu ay ka baxdo inaga waxaan nirahnaa muxuu ka tagay alla hebel muxuu ka tagay alla hebel muxuu ka tagay caruur buu ka tagay sarta ugu dheer magaaladu ka tagay guryaha waaweyn buu ka tagay doomuu ka tagay maraakiib buu ka tagay alla wuxuu ka tagay agoob buu ka tagay wuulaq waxba kama tagin waxaasaynu nirahnaa inaga markaan bini aadan nahay laakiin malaa'igtu maxay yidhaahdaan maadaa qadam muxuu hormarsaday alla muxuu hormarsaday alla maxaa ka horeeya resourceka ama khayraadka ugu weyn ee noloshaada anfacayana waxa weeyaan waa waxa qalbigaada gala iyo camalka saalixay samayso. maanta adiga saacadan adiga idaawanaya su'aal baan ku weydiinaya saacadan adiga idaawanaya maalkaaga iyo guryahaagu hadda miyay ku saaran yihiin miyay kugu dhex jiraan guryahaagu miyay kugu dhex jiraan waa maya lacagtaadu miyay kugu dhex jirtaa waa maya waxa kaliya caawa kugu dhex jira waa qalbigaaga iimaanku uu ka buuxo iyo raalli ahaansho inaad raadisay iyo camalka saalixa waana waxa ku raacaya. haddii marka maalkaagii iyo xoolahaagii iyo caruurtaadii iyo xaasaskaagii caawa adigoo idaawani kaliya aysan kugu dhex jirin qiyaamahana kuma raacayaan kaligaa baa imanaya. marka waxa kaligaa ku raaci doona ku dadaala insha allahu tacaala. baaraka allah fiik. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.